dad mutadawac dhiigooda deeqaan waxaa hayna afkaaro lagu badbaadin karo hooyada Soomaaliyeed waxaa jira 17 degmo ee gobolka Banaadir MCAJ leeyihiin MCAJdaas in xaafad waliba degmo walba ku nool in la dhigo liisaska degmadaasi dhalinyarada ku nool taasi waxay keenaysaa in MCH ka wacdaan oo kale wala kala noo imo qofka loo shubay waxa hooyadiis walaashiis in abtigiis waay waa faantaa malena taasi afkaartaasna waxay keenaysaa in meel walba afkaar walba laga hirgeliyo wax badan loo sameeyo kale idaacaddan goobjoogna waxay laga dhageysanayaa idaacadda Mandeeqna waxa laga dhageysanayaa gobollo iyo degmooyin aan gaargaarin laakiin fariinteena waxay noo ogolaatay si xur ah inaan u gaarsiino idaacadda Mandeeq aad ay u bogaadinayaan agaasimaheedana Xasanna waxaan leenahay rabbi khayr Allah ka siiyo ugu casumay inaan maanta aan hor fadhiisano wuxuuna mudan yahay in la siiyo abaal marin sababtoo ah wuxuu dhiirigelinayaa afkaartan iyo waxyaalo badan oo in mujtamaci loo sii sameeyo ugu dambeyn Umar oo mas'uuliyiin hadda wax ka dhawaajinaa sida aalada social media tan meelaha kan gaari ku gaarsiisan mas'uuliyiin dhalinyarada Soomaaliyeed xiriir caadi samaysan bad meel walba xafiis ka fulan karaan tuulaha ahaato iyo degmo ama gobol si guud ah u ahaatee idinkoo marka laga yaabo dad badan oo Soomaaliyeed aan isticmaalin aalada inay jiraan meelaha fog oo tuulooyinka baan laga heli karin isgaarsiinta hab kale oo ka duwan asliin wad ku gaari kartaan ama wad uga firi kartaan xafiis si hooyo walba gees ila gees joogta ama tan tuulada yarta joogto aan laga isticmaalin isgaarsiinta social media ay ku heli karaan mas'uuliyiin misaanad waa mahadsantahay mar walba su'aashii igu soo celisid waxa soo xasuusanaya hadallo qurux badan oo aan hilmaamay ayaa soo xasuusanaya dhaqaatiirtii aan wada dhimaynay jaamacadda waxay ku kala soodan yihiin gobollo kala duwan waxaa qaar ku soo carabaaba sida galgaduud oo kale dhuusa mareeb oo kale dhaqaatiir ayaa ku sugan waxay doonayaan inay ka sameeyaan laamo halkaas inay ugu deeqaan oo kale gobolka mudug oo kale goboleedka galmudug oo kale kaalkacyo waxaa ku sugan dhaqaatiir wada dhimaynay jaamacadda diyaar u ah inay sameeyaan oo kale barnaamijkan ay sii gaarsiiyaan oo kale waxaa kaloo jiro Hirshabeelle beledweyne dowlad goboleedka Curdunka ah dhaqaatiir wada dhimaynay barnaamijkan ay sii wadaan oo kale oo sii sameeyaan oo kale afkaartii waxaa loo sii gudbinayaa decentralization wax la lahay in la sii daadijiyo ilaa iyo guri iyo tuulo la sii gaarsiiyo afkaartana dadka aaminsan waa dad fara badan oo aaminsan in la badbaadi karo hooyada Soomaaliyeed carruurta Soomaaliyeed ayadoo lagu badbaadinayo qofka Soomaaliga muslimka ah dhiigiisa in lagu shubo waxaa leeyahay dhiiga walaalkaaga Soomaaliyeed bixi dhiig badbaadi nolol waa ku dhigeena aad baad u mahadsan tahay aad iyo aad u mahadsan dhageystayaal kaasi wuxuu ahaa Dr. Umar Cabdiraxmaan Cali Dr. Habeeb oo ka mid ah doctorada da'da yar ee Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka Banaadir ahna asaasihi ama fikrada ninkii keenay urur dhalinyaro oo isku qaamay ama la baxay mutadawiinta deeqayaasha Soomaaliyeed oo dadkooda iyo dalkooda ugu deeqay inay dhiigooda si bilaash ugu bixiyaan barnaamijka hanka barbaarta iyo galabta martin uga amintiisa daayartii dalka aad baan uga mahadcelinayaa waan filayaa wax badan oo marka la xiriira dhinaca wadaninimada iyo daayartii wax doorka uga aadan inay galabta dhageystayaasha kala bixeen ayaguna wanaag ka lamida iyo kuwa kala badan ay sameyn doonaan guud ahaan intaas barnaamijku soo afmeeray anigoo saxaafadiin soo saarnay Sina Cabdalla oo farsameynayay markana waxaan mahadcelinaynaa Dr. Umar intaan sabtida ku kulmi doona barnaamijkan mid lamid ah aan leenahay sida iyo nabadgelyo Samu Dubai. Ha. Video Dubai. إلهي كبر